Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada channelkayga Yusra Media. Walaalahayga Soomaaliyeed ee qiimaha iyo qadarinta mudan waxa soo shacbaxay arin aan dhamaanteena ka argagaxnay, wax aan damiirkeena marnaba qaadan karin. dal iyo dibad joogaheena afkiiba juqdana gabay. qoomiyadda Soomaaliyeed saadaan nahay, wadaadiinteena iyo caamadeennaba afkii labadiisaan yeernay. ma beedkii Allah ayaa muslim iyo ummad dhiigooda shiishaha argagixiyo dilaaga ah ayaa ku dhex dhuunsan yahay, mise waa wax shisheeye lagu maal iyo magac raadsan, oo waa arrin siyaasad xambaarsan oo lagu suulinayo diinteena suuban deegaanadeena. sidaan ognahay oo uu dal joogaheena iyo dibad harsaheennaba ka warhayno, rasiqii deegaanka Soomaaliyeed la lunsay, ummaddeena la beecsay. ayaamahan waxaa nugu soo raad jiray kuwa aan kutubkeena Allah subxaanahu wa tacaala iyo dhaqamadii jaahiliyadii isku libaaqaya, diinteena ka been abuuranaya. walaalahayga Soomaaliyeed haddase arrin fagaaraysayo xeerkii gooysay. waxaa soo baxay jaahiliye cadceedda iyo dayaxa isaga dhex miirman yihiin, mowqif iyo maqluudba kala garanaynin. naceebkii urkii bilaaciyay, dulinimadii iyo doolarkii ayay diintii iyo firkeennii iyo faraceennii ka doorbideen. firkeennii iyo faraceenniiba fiintay ku cabeen. subxaanallah ayaan dhihi karnaa. bal ila fiirsha, ninka ma qaangaar miyaa ku tilmaami karnaa, mise waa duq aqli dhoocil ah? maalintii guddoomiyihii aniga iga horreeyey la qarxiyey oo dad badan oo ehelkayga ah isku meel lagu laayay, jamcadii ku xigtay xadbeed waxaan dhageystay masaajidkii ugu xigay. masaajidka wadaadka wuxuu ka hadlayay tarbiyatul awlaad. khudbadana waxaa loogu talagalay asbuuca waxa soo dhaca in lagu sheego oo lagu saxo ummadda. culimada waxaan u sheegayaa, masaajidda kaligiin ku tukan maysaa, annana bannaanka joogmay, ama waa xiraynaa ama shabaab waa la wada diriraynaa. ayaan dhoweyd masaajid baa nin lagu hordilay, wadaadkii iimaanka ah baa la xira. odayaashii oo dhan baa ii yimid, waa layla soo hadlay, wadaadkii ha la sii daaya. wadaadkii taliyihii qaybtaan waxaan ku yidhi wadaadka soo daa, baaridna ha gelina. culimmadii iyo odayaashii baan qada u sameeyey, waxaan ku yidhi culimo allah soo masaajid ma wax ka hadlaysaan, aniga waxba iguma fadhiyo, adinkiisa ay dhiba. kumana tukado ama aan masaajid. walaalahayga qaaliga ee Soomaaliyeed, ninkan sharafka leh oo u eg ruux suuradiisa leh qaangaara oo aqligiisana aqli dhoocil yahay, waa loo jeedaa, waana nii caddahay. ciddii aqli lahna waa fahmi kartaa inay tahay shakhsi loo soo dhiibay, uu yahay mowqif ka qodbay si jaraa'id la yiri. subxaana allaahu alcadiim. argagixiso waxaa lagu magacaabo waa wax waan ognahay dhammaanteena, dal iyo dibad joogaba, inay tahay wax dunida saamaysay. dalalka lagula qabsado, ciidda lagu rogo, dadka samcadda loogu dilo, diintooda lagu dhabargooyo, lagu nacsiiyo, firkoodana ay tahay in la suuliyo, oo qowmiyada kale xataa lagu soo abaabulo ciiddoodii. waan ognahay nasiibadana haysata, laakiinse inaan anaka isku jeesanno oo wadaad kasta aan hadeertaan oo wacdi u jeedinaya firkeenna dambena wanaagga diinta baraya aan ka dhinna inuu argagixisada la sameeyay asoo yaabano isla meesha lagaa soo helay. keebaad aamintaa, keebaad ceeshka la cuntaa, keebaad ka durugtaa, keebaad iska ilaalisaa. waan ognahay saqiirkeena iyo kabiirkeena inaan ku lacamanay siyaasaddan horumaraysanoo dalalka iyo ciiddii dadka lagu rogo. waan ognahay waxay tahay, waan ognahay argagixisow wuxuu yahay.
subxaan allah ilaahayna han ummadeena ha ka ilaalsho hana naga suuliyo laakiin caqli laawahan la masaajidna geli maayo masaajidka iyo dadka wax garadka ee duunta ku taqlusay aan rabnay inay firkeena hadeer waxa wanaagsan ee jidka wanaagsan ay ka dhaxlaan ayaan ku shaabadeynayaa leh oo waa dambiilayaal subxaan allah alcadiim aan leenahay taas waa waxba ka jiraan ana kuma nihin xoodaan sidii xoolihii hadba gobol lagu maamulay oo abtigii iyo inankiisii iyo inantii iyo habayarteeda la kala mowqif laga kala dhigay oo la iska soo horjeeday mid kastaba calan gooniya loo suray oo mid kastaba sidii gumaystihii 1960kii wixii ka horeeyaba hadda meel lagu gobol laga soo jeediyay sidii xawiyaankii iyo xoolihiina lagu gumaaday mas'uuliyiin noocaan oo kale inaan yaalla marnaba ma aha walaalayga Soomaaliyeed waa inaan ka soo horjeesanaa waa inaan diidnaa kan diinta ka soo horjeeda waa inaan diidnaa kan dhaqanka ka soo horjeeda waa inaan diidnaa midka midnimadeena ka soo horjeeda waa midka hadda xariiqan noo dhigaya siyaasaday mar isku haystaan kursiye mar isku haystaan doolarkay kala shaandheeyaan deemankeena geliyaan subxaan allahu alcadiim jidadkii burburiyaan acuudu billaahi min ashaydaani rajiim walaalayga Soomaali noocaan iyo waxa fikradahan xambaarsan markasta waa inaan ka hortagna haddaan doonayno dhul nabada ay dad ummad saafiya qulubtooda ay tahay qulub saafi isku ah Soomaali waa inan iyo abtigiisa habayar iyo inanteeda waan isku dhaxnaa waan isdhalnaa laakiin hadeertan inay dhowr qowmiyad laga kala dhigo dhowr caladood loo kala suro oo haddana anakii la isku dhameeyo oo anakii la farba far ku tiiq aan noqono oo anakii la isku horkeeno oo anakii dood iyo mid kastaba uu noqdo laga mid ah shacab mid aan taageersana mid baan ka soo horjeeda uu ka soo horjeeda Soomaali firkiisii ma aha soo aayatiinkiisii hore kii dambe ma aha bismillaahi raxmaani raxiim baan leenaa walaalayaal inaan iska qabanno siyaasiyiinta noocyadan oo kala oo dabadhilifka oo waqtigii gumaysiga saan u taagnaan jiray hadeer haddaan gumaysiga ka baxno dhexdeena isku jeedino annaka isku keen jeediyay noocan waa inaan iska qabanaa ummadeena Soomaaliyeed fasaadinaya dhammaantiin intaan doonay waan ila qaybsado walaalayga qaaliga waxaan inaga tagay salaanta ugu qiimaha iyo qaayaha badan dunida iyo aakhirada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh isku soo noqod xiisa wanaaga